wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka iyo guddiga u xilsaaran dib u eegista iyo guddiga madaxa bannaan ayaa maanta magaalada Baydhabo ka daafuray shirka la tashiga culimada iyo waxgaradka magaalada Baydhabo. ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Koonfur Galbeed Soomaaliya. waxaan idinkugu wacay waxay tusinaysaa bulshada doorka ama qaybta ah kaga jirtaan qaybihii kale bulshada waa la soo kulmay marka waxaa la yiraahdaa culimadii iyo odayaashii dhaqanka la'aantood wax la soo gabagabeyn karaa ma jiraan sabab ogsoon tihiin waxa laga hadlayo dastuur waaye dawladnimada la sheegayo ama Soomaaliya joog ama Afrika joog ama caalamka meesha doonta ka joogay waxa asaas ah waxa dastuurka loo yaqaan dastuurka Soomaaliya waa la socotaan si kumeel gaar loo ansixiyay ama xaalad kumeel gaar ku jira 2012 ergadii ansixisay waa ogeedeen oo laga yaabo qaarkiin ergadaas inay ku jiraan ergadii dastuurka soo ansixisay ee 820 ka ahay maanta waxaan joognaa marxaladii dastuurka la qabiyo tiri lahaa tii ugu wanaagsan ama heerkii ugu wanaagsan la jooga dastuurku wuxuu ka kooban yahay 15 cutub 4 cutub kamid ah hadeertan baarlamaanka uu meelmariyay markii ugu horeysay way soo soo bilaawday dib ogistaan in baarlamaanka la horgeeyo oo cutubada dastuurka kamid ah baarlamaanka uu meelmariyo afartii hore waa la meelmariyay hadeer waxaan u fadhinaa marka oo la tashiyadeeda ay socdaan 5 cutub kale ee ku xigtay cutubka 5aad ilaa cutubka 9aad. shirkan ayaa diiradda lagu saaray wax ka beddelka cutubka 5aad ilaa 9aad ee dastuurka iyadoona laga falanqeeyay talooyin iyo aragtiyo muhiim ah ay soo bandhigeen ka qaybgalayaasha. sidoo kale waxaa goobta ka hadlay Farxiye Muumin iyo Senator Saciid. waxaan idiga mahadnaqaynaa iyadana sidoo kale idinkoo noo imaateen oo roobkan iyo qabowgan noo soo dhaxmarteen taasna waxay cadeynaysaa in aad danaynaysaan sidii dalkeena iyo dawladnimadeena u hana qaadi lahayd. waxaa marqaati ah in qaarkiin halkan jooga aad qayb weyn ka ahaateen inaan ka baxno ku meel gaarnimadii oo qayb weyn ka soo qaadateen xildhibaano dhisoogi haduu yahay haday tahay dawlad dhiskii haday tahay state informationidii la qabanayo kurtigood aa qayb weyn oo libaax la ka qaadateen taasaana keentay maanta inaan meeshaan wada fariisano oo aan ka wada hadalno masiirkii ummadeena masiirkii caruurteena masiirkii jiilalka dambe awoowayaasha ayeeyooyinka aan u nahay runtii 825 ergo ayaa ansixisay 2012 dastuurka hadda aan haysano waxa loo sameeynayo oo isbedelka loogu sameeynaayna waxay tahay laba qodob mid waxay tahay qodobo u baahnaa wada xaajood siyaasadeed inay ka galaan madaxda dalka iyo qayb ka mid ah waxa iyadana inuu ku jiro qaladaad yar oo iska hor imaanaya haday tahay alfbeetado qaldan haday tahay sidii shuruudaha loo kala dhigayo iska hor imaanaya iyadana sixitaan u baahan taasaan maanta halkaan u wada fadhinaa waxaan rajeynaa insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo inaa qaybtiina ka qaadatiin ka culimo ahaan ka oday dhaqan ahaan afiirsan maxaa dan u ah dadkeena iyo dalkeena annagoo ah gudiyadii ama hay'adihii u xilsaarnaa dib u eegista dastuurka sida la sheegay waxaanu maalmahan u joognay inaanu la tashiyo la yeelano bulshada reer Koonfur Galbeed oo ataladiina nagu biirisaan annagu haddaanu nahay hay'adihii u xilsaarnaa dib u eegista dastuurka waxaanu idin la nimi dhago aan idinku dhageysano iyo waraaqo aanu ku qabanno buugaagaanu ku qabanno macluumaadkii aragtida markaan la wadaagtaan. xogayaha wasaaradda ayaa culimada aragtiyadooda ku biiriyay geedi socodka wax ka beddelka dastuurka taasi oo qayb ka ah dadaalada lagu xoojinayo dawlad dhiska iyo isku duubnida bulshada Soomaaliyeed. waxaan ogsoonahay geedi socodka nabadda iyo dawlad samaynta Soomaaliya waxa saldhig u ahaa 12 sano oo soo dhaafay odayada dhaqanka iyo culimada Soomaaliyeed saldhig u ahaa ayaga la dhihi karaa dhalay hadda dawladnimadan aan haysano ayaga saldhig u ah markasta oo mushkil iyo problem siyaasadeed dhacana ayaga xalka iyo xulusha haya oo qayb ka ah si kala hadaan iraado door muhiim ah oo runtii aan la iloobi karin bay kaga jiraan sidaas aawadeed baa waxa qasab ka dhigaysa in la tashigu laga siiyo door muhiim ah si ugu yeeshaan uguna daraan soo jeedintooda iyo wixii tala iyo ku beerina saas la midna doorka culimada Soomaaliyeed ayaduna door la hilmaami kara maaha sababtoo ah dastuurkeena Soomaaliyeed iyo mujtamaceena
iyo habdhaqanka nolosheenna oo idil iyo ismaamulkeena oo dhan baa waxa asaas u ah diinta iyo shareecada islaamka oo runtii wax kasta sida dastuurkuba tilmaamaya wax kasta oo shareecada islaamka aan waafaqsanayn inaanay dastuurka qayb ka noqon karin qaybna ka ahayn taladiina iyo soo jeedintiina iyo wax ku beerintiina iyo ku daritaankiinuba muhiim buu noo yahay. Cabdi Fataax Tawakkal, gobolka Shabeellada Hoose.